waxa hortiina ka muuqda ayixii oo la buufinayo halkan waxa ku sugan waa dadkii loo tababaray oo la dagaalamaya ayixii geedaha waxa saaran xagga waxa saaran dhulka waxa saaran waa ayixii waxaan leenahay marka hore waa mahadsantihiin wasaaradda beeraha ee federaalka wasaaradda beeraha ee galmudug mas'uuliyiinteeda mashruucan aan soo gaarsiiyeen oo runtii qaabkii bahalka ama loola dagaalami lahaay ama loo bilaabi lahaay dagaalkiisa deegaanka uu ka dhaqan galay sidaan xogta ku hayno ilaa 7 degmo oo galmudug ah umbaasaan looga buufinaya oo laga bilaabay laakiin waa bilaaw mooyaane waxba kama bedeli karaan bahalkan waa bahal aad u tiro badan deegaankii dhammaayba u camimay daaqii buu ka dhameeyay shalay meeshii naq ahayd maanta marka timaado waxaas leedahay roobkiiba kuma da'in waxaan leenahay marka haloo soo gurmado ummadan waxay u baahan yihiin mashruuc weyn oo lagula dagaalo waxaan codsanaynaa haddaan nahay shacabka galmudug iyo bulshada galmudug meel kasta aan joogno in nagala saacido oo gacan nagala fidiyo oo bahalka nagala buufiyo oo inaan la dagaalan diyaar u nahay haday tahay tababar iyo haday tahay tayeen iyo haday tahay qalab iyo haday tahay daawo gacan nagula siiyo anaguna waxaan diyaar u nahay iska wax u qabso iyo is-abaabul iyo is-xilqaan inaan kula dagaalanno shaqadan hadda waxay ka socotaa ilaa 7 degmo oo galmuduga waxay markii koobaadna ka bilaabatay degmada Cadaado waxaana lagu xijiyay degmada Bandiiraley haddana degmada Cabadwaaq degmada Balambal degmada Xeraale degmada Gurceel iyo caasimadda galmudug hadda lagu soo qatimo oo shaqada ay ka socoto oo meeshii qatinka heedan joognaa maantay aad iyo aad waxa u mahadsan dawladda federaalka ee Soomaaliya qaasatan wasaaradda beeraha tababarka ay siida tiimka waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxa kamid ah qaabka la iskugu darayo sunta xaqiiqatan lama aqoon dadkeenu maysan aqoon sunta ayagoo isticmaalayay oo hadda sunta la keenay lafteeda isticmaalayay agabkan ma aysan haysan sida hadda dharka oo kale iyo haamankan lagu buufinayo baatiya dalagii iyo xooluhu geedii cun lahayn iyo daaqii iyo dhammaan dhibaato intii ku filan marka waxaan leenahay horta tiimku waa mahadsan yahay maanta shaqeeyay oo saata ula dagaalamay aad baan idinku mahadcelinaynaa tiimka iyo degmada iyo maamulayaasha iyo dhammaan dawladda federaalka inta codkeena maqlaysa waaqada aan la cabanayno iyo tan dhiman intaba iskala asagu iyo maqluuqa cunaya intaba asaad waxaan codsanaynaa in laga qabto wixii laga qaban karo ayaha oo la kala qabto ma aha annaga kaliya Soomaaliya oo dhan buu maanta saameeyay qaybtu tagay iyo qaybu hadda ku sii socdaba